عام كوال عقارك حسوسارك بيرها نظامكي waxbarashadii iyo kalluunkii wabiyadii khayraadkii caan ku ahayd marka dhul cagaarna wuxuu aad u qurux badan oo nabadda ku macaan dadkiisuna aad ugu dhigeeyay waa dad waxbarashadii aan haysanin caafimaadkii aan haysanin horumarkii kale aan haysanin dawladnimadii aan haysanin wax caqabadahaas waxay tahay wanaagii noocaas ahaa oo jeclaayeen sida beerihii iyo dawladnimadii iyo hogaankii iyo dhib yaradii intiiba midna ay haysanin oo ay maanta gacan ugu jiraan gacan cadow maamul dawladdu markay imaatay Jubbaland Kismaayo gacanta ku dhigtay waxa garabkayga koobaad noqday ama horumarkan gaarsiiyay inta badan aniguna u socday laakiin hankan iyo barnaamijkan maanta soo gaarsiiyay gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose Mudan Cabdishaaq Cabdullaahi Cali Gooni waxyaalaha aan ku xushay in aan u magacaabo degmada markuu joogay aan ka soo qaado gobolka Keen waxa ka mid ahaa behaviorkiisa akhlaaqaadkiisa integration community integration ka soo dhaxgalay waxa kale oo ku xunay waxay ahayd mar walba wuxuu opposite ku ah ka soo horjeeday jiritaanka al-shabaab Yaxye markii gudoomiyaha laga dhigiyay la tashi badan baan sameynay markuu anaga codsiga noo keensaday waxa jiray gudoomiye gobol baa jira gudoomiyaha u tagnay aqoontiisa iyo rabitaankiisa ninkii ayaan u sheegnay haddana waxaan u yeelnay dadkii deegaanka nala deganay marka 12 tuulo jamaal xagga jirto oo gedigaana dadkeedii way ogolaan yahay inuu gudoomiye u noqdo jamaal markaan ku soo koray waxay ahayd meeshan hadda joogo iyo meel ka sii fogeysa inaan sii gaaro ama hormuud aan u noqdo bulshada reer Jamaame ee dawladnimada jecel waxaan qabtay intan hadda aan joogay degmada Jamaame tareerino aad fara badan oo dhowr jeer ilaa 3 jeer ah oo isdhexgalka arrimaha bulshada ah tartan barooni oo aan bulshada isku dhexgelinay si ay tartan aan tuulooyinka xorta oo dhan Jamaame waxaan ka soo bilownay heer xaafad heer waxaan taagneen aan guryaha ku garaacno dhalinyarada marka waalidiintooda ina dhahayeen wiilkeena hadduu maamulka galo waxa dilaysa shabaab way aad bi xaalad u xumeed annagana laga aaminsan hadduu nin salaamo niga inuu tagay waxa kamid ahayd mar walba inuu sameeyo iska wax u qabso haday tahay bilicso cilinta magaalada haday tahay dhir la beerayo kale haday tahay magaalada qashinkeeda la xaqayo ninka dhalinyaro buu ahaa lacag kuma san qaadanay laakiin dal jacayl iyo waxay ka ahayd in dadka bulshada kale aysan wax gaarin dhalinyarada doorka laga rabo waxa waaye inay u istaagaan horta wax u qabadka dalkooda ay u istaagaan horumar ay u socdaan inay u istaagaan cadawga inay iska riixaan inay u istaagaan dalkooda inay dhistaan oo aniga oo gudoomiyaha ah aan tuulo walba intaan tago xafiisadeedii iyo meel walba meesha laga maamulo si caadi ah u dhaxmari karo inaan horseed u noqdo duulaha gaarsiin degmada Jamaame yaan rajaynaa insha Allah duulaha gaarsiin